شلي نيدي يا مرالكي يا صومالي نمدي أتكو قرب استاكتين عيدا مدى قرنك يا أدهبكي نوسو قادتين يا قفل باو قصو دقاقة ماشي أو جوغي تاس إلا أن حقيجينو إن نمان كان إنا دمان ديغانا دا صوماليات أن كسارنو مرحنا بإنانو كان ديبو قرنقو هورا إنا نقصي سعنا الربا إنا نسيحو جينا الربا وعلى الربا فرصة أي ديبو قصو جيستان إنانو كان سينيدان كإلهي كوا ولدو ماليسانو لغا يابو إنا ميلاها كودون سيهينو جهي كبحان إلهيهين وعلى الربا إنا لغا دالين الرادي إلا اللي هلاي تا marka inta uga gudbo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaago wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idin la garab istaago waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqon lahayd saanida aad ku dirir lahaydeen oo risaasta ugu horeyso iyo hadday noqon lahayd caafimaadkiina qofka wax gaaraan askariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan taas ayaan ku dadaali doonaa wixii hadda wax gaareen waa ogtiin ciidamadu mas'uuliyadaas way qaateen hadda wixii ka dambeeya wixii wax naga gaaraan waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo nasaar kaliya ma ahan inaad dagaalamaysan inay ku tahay dad muwaadiniin Soomaaliyeed mas'uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaati sidaas awgeed marka taas ilaahay idankiis ma ka doonto xildhibaanku sida uu sheegay waxay tahay inta aan laga daahin inaan ka daba tagno ilaahay idankiis waa isgarab taaganahay waxaan xaqiijin doonaa idanka ilaahay gabadha iyo wiilka Soomaaliyeed inay xurriyad ku noolaadaan oo ay ka baxaan gacanta nimanka sharwadayaasha inta ay nimankaas dul saaran yihiin dadka Soomaaliyeedna ma jiro hal qof oo muwaadin oo Soomaali oo xurriyad sheega kara ma jiro hal qof oo waxa uu leeyahay dhihi kara aniga iska leh sababtoo ah haddiiba saacadda ay rabaan iyo ku yimaadin intay rabaan ay ka qaadanayaan seed adigu sheega kartaa ma sheega kartaa maya waa nin awood u leeyahay iyo ku yimaado ku dhahayo guriga ka baxana jiifanaya doqonnimadiisa ari hadaad leedahay geel hadaad leedahay dukaan hadaad leedahay gaari hadaad leedahay saacadda oo u heliyo awood oo aadan fahmin shartiisa ayuu iyo ku yimaado ka qaadana taas intaysan ugu sameyn marka horaan u soo aragnay taas intaysan ugu sameyn marka marnaba waa inaan kaan u ogolaan hadda waa iska dulqaadnay dadka Soomaaliyeed oo kale mushkiladaha ku hayaan waa inaan ka dulqaadno waana in dhabarka taas noogu xirnaada sida loo sheegayna ilaahay idankiis dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonaan ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doonta ilaahay idankiis ayadoo xura oo aan cidna ka baqin oo xitaa qoriga aan sidan oo u baahnaynba qofka bini'aadmiga waxa uu helo waxa ugu horeeya ugu wanaagsan waa amni mar haddaan naftaada iyo maalkaaga la nabad gelinay ee gurigaagi lagugu yimiday ee gurigaagi naftaadina lagu goynayo maalkaagina lagugu qaadanayo qofka shahiidu horta waa adiga qofka inuu dagaalamo waajib muqaddas ay ku tahay waa adiga waxa la rabaa marka ciidamada qaranku way idin daba taagan yihiin way idin hor taagan yihiin way idin garab taagan yihiin adinkana sidaas oo kale la rabaa inaad kuwa naga maqan inay ku soo biiraan adunkuna meesha aad ka wadaan ka sii wadaan waxa laala waxaan heli karno taa kuleena waa idin la soo gaari doonaa ilaahay idinkiis taa kuleen kaliya ma ahan ilaahay idinkiis waa idin imaan doona waan idin la joogi doonaa aad baad u mahadsantiin